shirkadda isgaarsiinta Telesom laanteeda Buuhoodle ayaa biyo u qaybisay qaar ka mid ah xaafadaha deegaanka Buuhoodle iyo sidoo kale deegaanka Dandano hoos yimaada gobolka Cayn waxaana biyahani ay ku soo beegmayaan xilli abaar baahsan ay ka jiraan dalka ugu horreyn waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha shirkadda isgaarsiinta Telesom Cabdisamad Cali Xasan maaha markii ugu horeysay ee aanu biyaha qaybino mana noqonayso insha Allah markii ugu dambeysay maanta xaafadan aanu ka bilownay ilaa xaafadaha magaalada aan wada gaarsiinana saasaan u wadaynaa maanta waxaanu ku bilownay 12 booyadood oo arkaysaan hawshaas waxa ku deeqday shirkadda Telesom horanayada ugu deeqday dubna insha Allah ugu deeqi doonta waxaan doonaynaa inaanu dadka wixii aanu tari karno hadii ilaahay idmo inta abaartu jirto ilaahay hayna ka soo jabiyay inaanu tarno oo si hagar la'aan u tarno sidoo kale waxa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah dadweynaha maanta biyahani loo qaybiyo si weyn u soo dhaweeyay biyahan ay maanta soo gaarsiisay shirkadda isgaarsiinta Telesom dhaanteeda Buuhoodle aad iyo aad baan biyaha ugu qablay waana sugaynaa mid dambana ilaahay hayno ama cirka ka keeno dadka dadweynaha Soomaaliyeed ka keeno waanu mahad celinayaa boqolkiiba boqol baan u mahad celinayaa biyihii Telesom layaashii dadweynihii waa aragtaan taagan iyo gawaadhidii iyo biyihii xalaala wixii noo geystay wada waa ku mahadsan dhammaantood intay leeyihiin waa ku mahadsan ku mahadnaqra irsaaqadii ilaahayna waa ku mahadnaqay tan ilaahay waa keenay tii ilaahay la isku sawirayna waa subxaanahu afar baari loo keenay khayr ilaahay siiyo hay'adii ilaahay khayr siiyo Cabdi Casiis aadan jaamac telefishinka waa bari Buuhoodle.